qodobkaas isagana waa qodob aad iyo aad muhiim noogu ahaa, sababtan wax kale ma aha. Si amisom dalkan uga baxaan waa in ciidankeena ay helaan hubkii iyo tasiilaadka u baahnaayeen si amniga dalka u sugaan. maanta ciidankeeni waxay ku xaniban yihiin ama ay ku qasban yihiin amisom markay dhaqaaqdo inay dhaqaaqaan ilaan ma haystaan tasiilaadkii. sidaas daraaddeed ayaa dowladdu waxay mudnaan siisay in cunaqabataynta laga qaado si hub loogu soo iibiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. caalamkan waa markii ugu horeysay ayagoo wada jooga ay nala qaateen inay waqtigii saxda ahaa la joogo in hubka cunaqabataynta laga qaado dalka. taasna waxay ku timid dadaalkii iyo wadajirka iyo midnimada dowladda Soomaaliyeed ee muujisay iyo dowlad goboleedyada. waxaa kaloo jiray horay cunaqabataynta in la qafiifiyey. markii la qafiifiyeyna waxaa jiray shuruudo lagu xiray. runtii horay ayaa aad looga soo shaqeeyey iyadana in cunaqabatayntaas sidii shuruudahooda loo buuxin lahaa. maantana Soomaaliya waxay la timid qorshihii cadcaddaa oo tafatiran oo muujinayay in dhammaan shuruudaha lagu xiro dhan diyaar loo yahay in la sameeyo.